عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وابن ماجه. On the authority of Abu Huraira, may Allah be pleased with him, who said, the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, part of the perfection of one's Islam is his leaving that which does not concern him. A Hassan, good, hadith. Narrated by At-Tirmidhi and Ibn Majah. Abu Hurairah alle ha ka raali noqdee wuxuu yidhi, rasuulku naxariis Allah korkiis ahaatee wuxuu yidhi, wanaagga qofka islaamnimadiisa waxaa ka mid ah inuu ka tago wax aan isaga khusayn. xadiis wanaagsan oo uu wariyey al-Tirmidhi iyo Ibnu Maajah.